السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena kobcinta garaadka carruurta. maanta waxaan haynaa laba qiso oo diini ah. qisada koowaad aanu gudubno. waxaa jiri jiray nin shiiq ah dadka aad iyo aad u jecel. maalin maalmaha ka mid ayuu safar soo galay. safar dheer kadib waxaa la gaaray waqtigii maqribka. wuxuu aaday masaajidka si uu u soo tuko salaad maqrib. markuu tugay wuxuu go'aansaday inuu iska joogo masaajidka. markaas kadib waxaa la gaaray waqtigii cishaha. wuxuuna ku tukaday masaajidka. wuxuu u tagay imaamkii wuxuuna dhahay aan caawa inta saaxdo. ninkii imaamka wuu diiday wuuna buriyey. ninkii shiiqaha asigoo wadada socdo ayuu wuxuu arkay nin rootiila ah wuxuuna dhahay ma haysataa meel ani aad jiifto. ninkii rootiilaha wuxuu dhahay haa soo gal. gudaha ayuu soo geliyey wuxuuna siiyey joori iyo barkin. markaas ayuu shiiqii meeshii fadhiistay wuxuuna arkay ninkii rootiilaha oo leh subxaana allah alxamdulilaah allahu akbar. ninkii shiiqii wuxuu dhahay warniyow ilaahay subxaanahu watacaala ducadaada ma aqbalaa. ninkii rootiilaha wuxuu dhahay ilaahay hal duco ayuu iga aqbalin inta kale wuu iga aqbalay. ninkii shiiqaa wuxuu jeclaystay inuu weydiiyo su-aashan maxaa waaye ducadaasoo ilaahay ka aqbalin. ninkii rootiilaha wuxuu dhahay waxa aan jecelahay in aan shiiq hebel aan arko. shiiqii aad buu u yaabay sababtaa ninkaa rootiilaha sheegayo waa si dartiisa ayuu ilaahay masjidka shiiqa ugu soo buriyey. wuxuuna dhahay shiiqa sheegiis waad la kulantay. ninkii rootiilaha wuu soo jeestay wuuna yaabay. wuxuu dhahay sidee aan la kulmay nin aan arkin. wuxuu dhahay shiiqa aad sheegiis waa ani. ninkii aad buu u yaabay. qisadaas waxaa ka faa'iidaysanaynaa in aan tasbiixda badino oo ilaahay baritaankiis badino oo ilaahay wax kasta awood karo. aanu gudubno qisada labaad. waxaa jiri jiray haweeney wayna dhimatay. waxaa la gaaray waqtigii la dhaqi lahaa. dadkii ayaa iskugu imaadeen wayna dhaqeen. laakiin intii la dhaqaayay dadkii dhaqaaya waxay arkeen arrin mucjiso leh. waxay arkeen naagtii oo la gidin waayey gacanteeda xataa la qaad waayey. naagii waxay u tageen shiiqii wuxuu dhahay marka aad dhaqaysiin meydka qur-aanka akhriya. sidii ayay sameeyeen. sidii ayay meyd ku dhaqeen. meydkii ayay soo qaadeen haddana culeysko. markaasi shiiqa u tageen wuxuu dhahay qur-aanka akhriya ee qaada. way akhriyeen fudeed ayay noqotay. waxayna geeyeen qabriga agtiisa. waxaa uu isku dayay in la duugo laakiin waa la qaad waayey. waxay u tageen haddana shiiqii wuxuu dhahay qur-aanka akhriya ee kor u qaada. waxay kor ayay u qaadeen. markii kor u qaadeen qur-aan akhriska way joojiyeen. qabrigay hal mar ku tuureen. dadkii ayaa la weydiiyey maxaa ugu tuurteen qabriga. dadkii waxay dhaheen culeyskeeda iyo qaadween buurta uxud ayay ka weyn tahay culeyskeeda. markaas shiiqii wuxuu u tagay ilmaheeda wuxuuna weydiiyey mid ka mid ah wuu meesha ma imaanin midna wuu oonayaa. wiilkii markuu u tagay shiiqii wuu weydiiyey su-aal. wiilkii oonaya wuxuu dhahay hal mar ma arki karaa hooyadeyda. shiiqii wuxuu dhahay haa waad arki kartaa. dadka qabriga ayuu soo dhexbaxeen. wiilkii asigoo hooyadiis qabriga ayuu kasoo dhexbaxay asigoo hal mar oonaya uuna cararay. dadkii ayaa yaabay sidii ayay ku duugeen. dhowr bilood kadib shiiqii waxaas ka hor imaaday maamadii wiilkeeda. shiiqii ayaa wuxuu dhahay maxaa qabriga ugu soo cartay markii aad ku ogolaanay inaa hooyada wejigeed fiirisid. ninkii wuxuu dhahay taasi hooyadeyda maaha. waxaan arkay hooyadeyda oo wejigeeda gubtay. shiiqii aad buu u naxay wuxuuna dhahay hooyada maxay camal samayn jirtay markii adduunyada joogtay. wiilkii wuxuu dhahay
hooyadeed aad iyo aad bay u fiicneed, dadka ma dhibi jirin, laakiin hal wax ay ku xumeed, salaada ma tukan jirin. caruuri qisadaas waxaa ka faa'iidaysanaynaa inaad tukato inta aadan adiga lagu tukan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.